كترمي دون القرن كالصوماليات هي هذه قار أهان برلمانك عن هذا كنا حاضرينه مدن قدومية وحنوبها هناي إنك بيهان بارنتاس لديده سببها كو وأما حباه هذا لقبه إن حركا وحلوقه بدر لبو محا كسب بيجي وقت جذبك صعد صدي الصوماليات لكلا شعر لها سدح هو حلواي ضد الصوماليات وأقول تاسله أفر هو حنا لليه هي خبرتي الصوماليات صعد صدي إلا يقاني معهن كوي للربي منا يسن صوبوحين شروطه للربي صعد صدياش شن وحي مدة الصوماليات آدو تونسنتهاي إن قفل أوجي هاي وأجنبي بوس كان لوض محيهن أقونتا يويارك نمدا وقفكاس جارك أولي هاي Soomaalida soo codsatana u dheeriyahay halkan waxaan rabaa inaan dul istaago ka codsanaya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya oo runtii umadaanu ay cod aqlabiyada dhinaca 8 Febraayo iyo banaanka ku soo codsadeen in arinta iyada aysan dhicin oo qof aan Soomaali ahayn booska uusan dhinaca ku soo bixin hadii kale wax badan baa umadatan dhinaca laga filayaa inay ka yimaadaan hadii taas dhacdo 6 golaha ma la horkeeni karaa خبرته يا أقونته وقفكاس هريجا وليه تضبط أدي قف غلط عن حركن وبدله محاد ديديا إن بريتنا أن بدله لهان شاء لونك الصومالية وهالكي عن كايري لما كن يكوبي تماكي الصومالي وعي ورياضة كم ده هاي ما لا جود قالوا ذلك عيدا كيسي دوحين عداوها درب جولة بدنية دقموين يا حريين دقن عدو صوت دم دربان وجراعة دبادي هذا أنا قاعد دلالة وذلك النوع كذايا marka taa inay muuqato way iska cadahay soo gaf ku noqon mayso jiritaanka iyo madax banaanida golaha shacabka in wax ummadu diidan tahay la horkeeno lagana fisho in aan yeelno wax ka bedelka qatarta xambaarsan sagaal sida xeerarka shaqaaluhu qabaan shaqo qof Soomaali ah uu ka shaqayn karo qof qalaad looma dhiibi karo iyadoo aan ognahay muwaadiniin hal door ah oo Soomaali ah shaqadan ku haboon in ay soo codsadeen maxay tahay sababta ajnabi loogu doonayo shaqada mudana gudoomiye waxaan baarlamaanka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa in aan sinaba loo aqbalin dabinka laga soo shaqeeyay isla mar ahaantaasna aan qaadano go'aanka shacabka naga sugaya oo ah difaacidda dantooda iyo inaan ka qabanno hadimada lala doonayo dalka mudana gudoomiye xeerka kani waxaan ugu yeeray waa wax la yiraahdo qalbi jabis weeye xeerkan qofka Soomaaliga ah isaga oo duruufo adag haystaan ayuu haddana qabkiisa quutaa qabkaas waxa si fiican oo maanso ugu sharaxay abwaan Cabdulqaadir Xarsi iyo Allah u naxariistay oo ka jawaabay su'aal la weydiiyay oo ahayd Soomaali waa kuma isagoo ka jawaabay wuxuu yiri sinaantan la magacahay sanku neefle ma ogoli inuu iga sarreyn karo anna garasho soo gordahan Soomaaliya ruux uga ma dhigo Soomaali baan ahay تامرك واحد ويعدها هاي إن قبكي كوني اللي بقوله سنة سوالده الدفاع يصير ما أنت وهلكا وكل ما أنتي يعني معناها برلمان كوسو السعودي من وردياها أيها ويجيره عبد الشرع يرجع واندرمها هي ما أنت برلمان كهذا السعودان وحنا اللي قدونا هي حركة لمبر بقولي صدن وحكي بدل كبرلمان كجرهان معمول كبنك الدحى وحن كعد سنة هي هذيك هي عرورت هذا يعرّها كلا وهي قرعدان وحلبانada balse aniga iyo caruurta Soomaaliya ila midka inta badan ma aysan quraacan waxaan wax ku cuni jirnay ku quraacan jirnay iyadoo gaajan hayso inaan Soomaali nahay in maanta berrito ay dhaamayso waxaad moodaa marka go'aanka xilbaanada maanta qaateen in uu ka hor imaanayo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed aniga gaar ahaan waxaan jeclaan lahaa in warbaahintu ay buugaagta xusuusta binaha ay iga qoraan hadalkan oo aan ka soo amaahanayo abwaan gaariye Allah u naxariistay oo gabaygiisii hagarlaawe ku soo guraaday anigana hadhow iyo faallo halistaas inaan ka afeeftay oo waliba hiif iga gaartay hagarlaawe ii galbuuga marka waxaan leeyahay hagarlaawe ii galbuuga wada arkayseen maanta inaan isku dayno inaan hadalno balse nolo diiday